magaalada Hargeysa habeennimadii xalay waxaa lagu soo bandhigay barnaamij si faahfaahsan uga hadlaya maalgashi lagu sameyn doono warshada daqiiqda soo saarta warshadaas oo lagu magacaabo Boundary Mills soona saari doonto daqiiqda iyo sidoo kale calafka xoolaha warshadaas oo asaaskeeda ay leeyihiin aqoon-yahano reer Somaliland oo kala ah Cusmaan Sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo fadhigood yahay wadanka Canada habeennimadii xalay waxaa madashaasi ka qayb galay aqoon-yahano dhalinyaro haween iyo marti sharaf kala duwan iyo mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha warshadaha gudoomiyaha jaamacadda Francis Fanon Dr. Bulxan iyo mas'uuliyiin kala duwan ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Cusmaan Sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo ah aasaasiyaasha warshadaasi isla markaasina soo bandhigay fursado lagu maalgashan karo oo dadku ay kaga qayb gali karaan maalgashiga warshadaasi mashruucan aanu soo wadnaa mashruuc weyn weeye faa'iido badan dalka u leh faa'iido badanna u yeelan kara wixii ku soo darsama ee wax ku darsama waa maxay faa'iido u tahay wadankan macaashka yar ee lagu helaa maaha muhiimad weyn marka la qiyaasayo wadan halkuu gaadhay wax per capita income la yiraahdo lagu qiyaasaa waa al-fard shakhsi per capita income ka 196 wadan ee adduunka ah saddex un baa inaga hooseeya waa Burundi, Congo iyo Malawi saddexduna cuntadooday beertaan على الأقل cuntadooday beertaan talabaad waxa weeye wax soo saaristii oo yar oo waxay ku tiirsanahay beero iyo xoolo ay ahaayeen labadiina si yaraanaya wax replace gareeyo meesheedii galana aan joogin muhiimadda industry weeyay waa halka haddii aynu doonayno inaynu wadanka hore u marino waa in la galaa tallaabada dambe oo industry qofka saami soo daneeya oo aananu imika dadka ku lahayn kaalay oo lacag baan idinku ururinaynaa mashruuca loo sharaxaya qofkina soo daneeya waqti kale oo la sameeyo finance committee oo iyagu ay dad soo doortaan hantidooda ilaaliya oo iyagu ismaamula oo shirkadda ka madax bannaan oo shirkaddu markaa dadka soo maal gashaday ayagu kolba u tagtay ku jira waxaasaan u baahanahay oo caadi system caadi iyo world class ah oo audit lagu sameeyo maaha wax ma jirto horta imika aanu leenahay lacag baanu idinka baahanahay keena umanana baahnin runtii hawlgalkayga waanu haysanaa laakiin waxa weeyaan oo kale mustaqbalka ayaad nala soo xiriiri kartaan waana isdiiwaangelin kartaan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Cabdilqaadir Imaan Warsame Dr. Bulxan iyo mas'uuliyiin kale kuwaas oo dhamaantood bogaadiyay warshadani soo saari doonta mid kamid ah waxyaabaha ugu muhiimsan cunooyinka asaasiga diaspora dadkii laga tagay kulli faa'iidadii keenayaan tan iyo in kan badan bay keenayeen waynu filaynay waana soo dhaweynaynaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo horumar inay yimaadaan oo wadankii maalkashadaan laakiin aad iyo aad baan ugu farxay muddo badan bay qaadatay in fikradaasi lala yimaado taa imika Boundary Mills ee cuntada lagaga hadlayo waa taa muhiimka ah Cusmaan Sheekh waa nin karti badan waa nin aamina waa ciidaad wax la galayso waa inaad ogaataa sharaf weyn bay u tahay Somaliland inaynu helo laba nin oo muwaadiniin ah oo jecel dalkooga inay ku soo kordhiyaan inay awoodaan in wixii dabadda laga soo dhoofsan jiray dalka gudihiisa lagu sameeyo ugu dambeyntiina waxa dadkii halkaasi ka qayb galay su'aalo weydiiyeen aasaasiyaasha fikradda warshadaasi la hirgelin doono waxaana su'aalaha la weydiiyay kamid ahaa sidee warshadaasi u shaqaynaysaa halkee bay ka imanaysaa qamadiga laga sameyn doono daqiiqda qorshaha ma ku jirtaa in la maalgeliyo beeraha iyo su'aalo kale oo asaasi oo la xiriira in Somaliland laga soo saari karo qamadi ku filan warshadaasi iyo qaabka mustaqbalka arrintaasi ay u suuroobayso waxaana su'aalahaasi ka jawaabay aasaasiyaasha fikradda warshadaasi warshadani maxay cunaysaa ilawaana wax soo saartay xagee ka keenaysaana waxan waa inaad diraasad u samaysaa wadamada jaarkaagu maxay sameeyaan wadamada waxa sameystay jaarkaagu maxay sameeyaan 12 wadan iyo adduunka soo saara qamadiga inta kalena kuwaas ka iibsadaan wadanka Masar 12 milyan oo tan iyo soo iibsata sanad walba 8 milyan oo kaliya iyo soo saarta laakiin daqiiqda inoo keenta maalin walba marka mashruuc news bixinaya haddii ayna bil miyuu yahay ha wis bixinaya adduunka meel walba iska bixinaya
warshadani Boundary Mills ayaa waxay noqonaysaa midii ugu horeysay ee nooceeda ah ee dadka si ballaaran loogu soo bandhigo inay ka qayb galaan saamiyada warshadaasi oo qofka ugu yar loo ogol yahay lacag gaaraysa $2,500 inuu ku darsado warshadaasi waxaana arrintaasi ay muujinaysaa in wax wada yeelashadu ay muhiim u tahay maalgashiga gudaha Cabdishakuur Dayib Maxamed Hoon Cable TV Hargeysa